بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال وسعيد الشاعية والله ليال وحن كو أركي سوشيال ميديا ده كبر صوماليات وكبر كلو ولا شيء الصومالي سي أرحان درقة وقرا عيسى دقح دقح حاس أو وقرا فنيسو مال كستو حالسة مدح بها قدرناده runtii arrintaas si aan caadi ahayn ayaan uga xumaaday qalbiga ayaa i xanuunay waa arrin aad u fool xun I don't know kullu maleen ma qof fayow inuu yahay qofka saas sameynaya laakiin gabadha walaashay oo Soomaalida oo sida loo dilay runtii qofka dambi uu gali karaa qalad uu ka gali karaa bad xaq u malihid inaad garaacdo hadda koorna waan ka hadlay حق ملهد إن أد دجح سيق غير عادية أد وجرا عضو صدق ذي وح وأن كهالله يقفك بنو آدم جاه مركب قفك الدم بوكاجلي كرا لكن حق ملهد صدق ذي وح أو important تيجا وأن كهالله وآه قفك ولا الكا وح حران كأديجيسة يمال كيسة يشرفتيسة أي يكون حد قلب تيجا بداس وحن آد أرادنيا قف الله يقفك سومالي يجرنا يجا بداس لدي باتي ماشي يكون وشاي waxaan u baahanahay walaalayaal inaad ii soo sheegtaan inaad ii soo dirtaan taleefankeedina ii soo dirtaan meeshan kale kale inaad ii soo dirtaan gabadha inaan caawiyo raba gabadha dhakhtar u baahan tahay dib badan baa loo geystay runtii dhagaxa inta uu leeyahay dhagaxa ay ku garaacaysa inta uu leeyahay waa very waxa waaye naxariis dhan ma laha marka gabadha dulmigaas loo geystay runtii walaalayaal anagu waxaan u awoodnaa waa inaan la tacaalay dhakhtargeena hadayba noo shahay maba u malaynaya qof saas loo garaacay inuu nool yahay bad please qofkii garanaya gabadhaas ha igala soo xiriiro taleefanka WhatsApp-ka marka gabadhaas waxaan u baahanahay qof alla iyo qofkii garanaya meesha aan ka heli karo in WhatsApp-kayga oo ah 1612 203 0829 1612 203 0829 إن لا يجلس سحرسيو gabadha inaan caawiyaan u baahanahay qof alla iyo qofkii garanaya walaalayaalow ii soo raadiya qofka saas sameysay waxa waaye de kulli ilaah baa garanaya qof maskaxdeedu fayo yahay u maleyn maayo inay tahay iyadana la turkeedu dhakhtar maskaxda ay u baahanta qofkii duubay oo soo gudbiyana waxa waaye asagana waxa waaye wax wanaag ayuu qabtay laakiin gabadha iyo information-keeda saa loo dumiyo nooma soo gudbin ha noo soo gudbiyo gabadhaas dhibkeeda waa dhibkeena wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu